aad baan ugu faraxsanahay kulankan maanta waan ku faraxsanahay inaan kulankan isugu nimaadno iyadoo dadkii oqaashi iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii kulligood la wada joogo inaan maanta kaga wada hadlayno falka xun iyo colaadda qabiilka ah ee ka dhacday degmada Luuq iyo dhibaatada ay geysatay iyo nafta lagu waayay iyo xoolaha lagu waayay inaan kaga wada hadlayno waana ka xumahay inuu waxaasi dhacaaba xumaan ah oo dhibaato iyo xumaan bay inoogu filan qabiilku sida aayadda sheekhu uu ku sheegayay tacaaruf baa ilaahay ugu sameeyey ugu talagalay laakiin qabaliyadu iyo qabiilka lagu dagaalamaya iyo waxa uu gaadhay qof walba waxaad ogaataa berri qabri yar oo 2 mitir baad gelaysaa oo cid kuugu imanaysaa ayna jirin oo kii kuugu dhawaayo uu kaaga tagay qofku markaa inuu og yahay inaan berri qabiilo wax u taraynin abtirna una meel ku tagaynin isaga iyo ilaahay wuxuu loo hortagayo keliya qabanaysa maanta dad da-abaa jooga oo qabaa'ilkii matalaya oo cuqaala oo waxgarad oo huba inayna taladu ka hoosaynin laakiin wixii kas loo sameeyo ama xamiyada ay kugu qaadana waa wax ilaahay beri kugula xisaabtamayo maalmo kadib baa kuu dhiman cimrigaaga markaan usoo daadega arrinta aynu maanta ka wada hadlayno waxaan is leeyahay waa wax dad sufaa ay ka shaqeeyaan Luuq waa magaalo weyn oo Soomaaliyeed oo taariikh leh waa magaalo maanta aan isleeyahay qoys Soomaaliyeed Soomaaliya ku nool oo aan deegaan ku lahayn oo gurigiisu ka dhisnay lama helayo way magaalooyinka waaweyn kulligood taariikhdooda waa la yaqaanaa Luuq oo intaas oo qabiil ay degan tahay cidda isku laynaysa maanta xigtase iyo u kala sheeganaysa soo ayaa darama marka Luuq waa magaalo Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhan ay degan tahay oo taariikh lahayn oo weligeed xumaantan oo kale ayna ka soo dhicin iyadoo intaas oo qabiil ay degan tahay maanta inay ka dhacdo waxyaalihii ka dhici jiray meelaha qaarkood oo kale oo la isku laayo maanta oo kolba qolay riixdo hebel baa kan la yiraahday oo wax nasiib darro dhibaato odayaashuna taariikhda way wada ogyihiin kulli xogaal bay ka yihiin deegaankan shalay wuxuu ahaa wixii lala soo maray maanta hal cadow baan leenahay oo shabaab la yiraahdo marka laga soo tago jahliga iyo dhaqan xumada iyo xashiishka iyo waxa hadda maanta mujtamaceena fasaadiyay nimankaasaa noo ah cadow iyaguna maanta way isku wada dirayaan qolo walba jireedkana way u bannayn rasaastana way siin wixii ka go'a dabka isku shira waa gaalo ku jab ha isku baabeen macnaheedu ka tahay inaan markaa iyagiina fursad siin mujtamaca anagii uu kala go'o dowladnimadanadii ay fasaado soo ayaan darro maayo wax dhibka inteeda leh waxaan u baahannahay odayaalow iyo waxgaradow iyo mas-uuliin dadka meesha fadhiyo arrintaasi waa arrin aan la aqbali karayn intii dhibatay allah u naxariisto inta dambe aynu badbaadino waxaan doonaynaa xalka meeshaan laga gaadhay inuu noqdo mid dhaqan kala oo socda oo iyadoo la wada duuban yahay haddana meesha la wada tegi doono iyadoo la wada socdo oo gacmaha la haysto oo calamo cadcad la wato yaa siyaasiyiin iyo dhaqan iyo waxgarad iyo kulli la tegi doona haddii ilaahay gudaha wada gelaynaa waan isugu imanaynaa wixii ciidanana waan ka dhex saaraynaa hawsha tanaan maanta joogna qabiil hub haystaa ma jiro waxa ugu badan waa qori qofka xoolihiisa uu kula joogo cidoodka uu ka ceshado ogaan libaaxa iyo ruwaaga iyo waxa uu iskaga celinayo laakiin Malaysia qabiil leedahay oo hubaysan oo meel deganna ma aqbali doono deegaankan aan maanta joogna wax qabiil oo aan ku ognahay miyaa jiro reebel ciidankooda meesha joogo oo maanta ciidan reebel la yiraahdo qori haystaa ma jiraan waan ku noqon doonaa oo waan faragelin doonaa oo hoos baan u geli doonaa oo shakhsiyaadka fataaniinta ee dhibaatada wada ilgooniya lagu yeelan doonaa waxaan gogashaan u dhignay oo aan halkan isugu keenay oo u imaado waxay ahayd inaan sida ay tahay sababtoo waxa laga yaabaa facility ama tashiilaadka aan halkan helayna inaan meesha ku helin laakiin waan isugu wada tagaynaa nabadda oo wadana waan qaadaynaa oo maanta odayaasha dhaqanka Soomaaliya waan hubaa wayna galeen odayaal dhaqan oo akhyaara
oo deegaanka luuq degan oo ka soo jeeday baa galay oo xaajadaas markii hadda ay dhacaysay madaxweyne ku-xigeenkii ay jireen odayaal baa galay Soomaaliyeed intii ka qayb qaadatay kulligood oo mahad celin ama gabdhaha noqdeen ama odayaal ha noqdeen ama nabadoonkii la dilay ha noqdo ama nabadoonkii la dilay ha noqdo dadkii ka qayb qaatay oo dhan kulligood waanu mahad celinaynaa laakiin hadda waxaan rabnaa si dowladnimo oo intii hore ka xoog badan mas-uuliyad baa amaam allaahi naga saaran oo ta ani iga saaran ta idinka idinka saaran baa ka weyn odayaashiina dhaqankii hortayda fadhiya farna cabdi kuma fiiqayo odayaasha dhaqanka waxaan aada ugu mahad celinayaa ugaas maxaa xasan yar oo halkan nala jooga saacad walba intuu yimaado odhan jira adeerow khaladkan hala qabto war arrintani meel fog bay tegaysaa war way xun tahay oo aan isleeyahay uu ka niyad fiicnaa qof kasta oo meeshaa joogay markaan anigu isaga iyo hadallada iga soo gaadhaya iyo wuxuu igula hadlayay aan fiiriyo iyo say u dhibaysay laakiin maanta waa la wada tegi la kala hadhi mahayo ruudka iyo xididka ay leedahayna waxaan rabnaa inaan ka bixino meesha oo xumaantaasi dadka walaalaha ee cashiirada ah ee ehelka ah ee wax walba isu ah soo lama oga maanta inay cid walba xidid tahay haddaan maanta aada iswaraysataan labada xabadda isku soo ridaysaay waa iyagaa dad isugu dhow ilaahay aan usoo noqono oo odayaasha dhaqanku ha garteen mas-uuliyadda amaam allaahi ay leeyihiin oo odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhex jireen ha loo hoggaansamo wixii hadda ka dambeeya laakiin gacantu intii hore way ka weynaan doontaa arrintaa luuq deegaankan waan ka roonayn dagaalada noocaas oo kale ah laakiin waxaad ogaataan shabaab oo aan doonaynin intuu dadkaas ina xasilo oo deganaansho laga helo yaa isku kaa noqodaynaya waa kuwan hadda qolo walba le halumu isu soo dumayo keenaye arrintaa ilaahay hortii aan uga istaagno oo aan oday iyo nabadoon iyo ugaas iyo mas-uul iyo wasiir iyo xildhibaan federaal iyo ciidan kale kulli aan hal dhinac uga soo wada jeedsan midaasaan rabnaa taasaana liibeenta ku gaarayna haddii ilaahayna magaaladan Kismaayo nabadda hadda ugu badani waxay ahayd markii 8 qof oo jufo ah 2 qof loo dilay waliba waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ahaa in intay labadii jufo yimaadeen kuwii laga dilay iyo kuwii dilay ay yidhaahdeen kafantii iyo duugtii iyo rafisadii waan isla wadnaayo waan heshiinayo mag baan kala qaadanayna istiisaana loo dilay haddayna ahayn walaku fil qisaasi oo aanan fulinina xayaatooda dambe mayna timaadeen waxay dhacday markii dambe nin askari intuu nin isfeeraan inuu qoriga dhigto ilaa haddii uu dilo wax qoriga ku dhifto isagana waa la dilaya qof wax dilay ninna ma xigo hal qof oo wax dilay oo isaga intii la soo qabto la qisaasi lahaa yaa waxay sababaysaa intaasoo dil iyo intaasoo dhibaato inay dhacdo soo ma maxaa diidaya qisaastan ilaahay baa inoo soo dejiyey maxaad u xigtaysanaysaa war fataan adiga kula qoys ma aha oo kuma xigo oo maadan dhalin oo kulama dhalanin wax kaaga xiran hal qisaasood fuliso ood allah hortii u fuliso oo qofkii wax geystay intaad soo qaadda tiirkaaga keeto aada qisaasto wax intaas yaa kaaga filan in intaasoo mujtamac ay fasaado dilka la fulinaya laftii qisaasta waa inay sharci marto maxaakamadaaan leenahay culimaa joogta waa la garanayaa culimadu hal masalo oo ah hebel iyo markay fitantan oo kala taagan tahay mas-uuliyadda suldada iskale weliyadan waxba lama weydiinayo tanoo kale markay taagan tahay hadda waxaa jira kiisas magaaladan ka jira ka dhacay oo istiiza iyo jaasaas iyo sida ugu xun ee uu kasa uu qof waxu dilay oo labadii qabiil intay isu yimaadeen bay mag fooq caqliga kala qaateen miyaa la aqbali karaa waa jaas waa istiiza waa fitantu ha sii socoto soo maaha diyada la kala qaadanayaa dadka waxay u tahay mataqaana reer hebel baa reer hebel diya ka qaada reerkii laga dhintay wiilka ninka qofka la dilay aabihii iyo hooyadii iyo ilmihiisii iyo reerkiisii waxay gaaraya waa nisbe intee leeg waxaa laga yaabaa 100 neef inuu 1 neef ama 5 neef kusoo hagaagta reerkii aabihii ninkii la dilay ama odaygii wiilkiisa la dilay
ma kaga hadhaysaa 10 neef oo la siiyey oo xoolihiina la qaatay inuu cuqdadii qabo mashaki baa idinkaga jira laakiin markay qisaastu timaadee la dilo ee uu dhaasayna waa la aasay qofka maxaa u dhima xagee buu cuqdad u qaadi xaaladda aan maanta ku jirnaa diyadu xal ma aha diyada kiisaska ku dhaca ama shubha camdi ha noqdeen ama camdi ha noqdeen kama ha noqdeen ama si aan ula ka sahna noqotee laakiin kan oo kale ee fitanta ee ka sahna nooca wax loo dilay qisaas buu leeyahay waxaan u baahannahay marka in sharcigu uu shaqeeyo haddii loo baahdo maxkamadda halkan aan ka dirayna haddii maxkamad looga baahdo ciddii loo baahdo halkan aan ka dirayna odayaashii hore heshiiskay gaadheen iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wixii sixitaan u baahanna inta la joogaan saxaynaa haddii ilaahayna inta hadda la joogo yaa saxaynaa arrintaas ilmaarel aan wada qaadano kiiskaasi inuuna nagu sii soconin oo dadkeenna aan kala badbaadin hadday aanadu socoto oo isdilka uu socdo magaalo walba saameyn buu ku yeelanaya jifooyinka maanta aan u fadhinahay halkanay wada joogaan meeshanay wada joogaan meel walbay wada joogaan maxaa maanica marka inay fitantu sii socoto haddaynu sidan ku dayno ma jiro sooma wax maanic aada iyo aad baad u mahadsantihiin odayaasha malaaqa iyo ugaasyada waan uga mahad celinayaa ajiibitaankooda iyo imaatinkooda iyo kuwan intan xildhibaanada federaalka hadda inala joogto waxaan u malaynayaa ilaa 5 baa hadda fadhida aad baan ugu mahad celinayaa iyagoo qof waliba uu dhibsanayo waxa dhacaya iyo say tahay waliba wasiir hore ugaaska baydha baan uga yeelnayo aad buu ugu mahadsan yahay inuu isaga iyo ciddig inay bal wixii la isla qabto aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu